واقو دور درهم جوجة أيا صحابي دن وحوي عن عقوبة قبر يقول قبضت حاضر ملاينا يسال ليلا والنهارا رجل لالوش كجورانا هي أدها خيانة هي واحد أمد اللي يقصوا ديبي أول يرسيا ليلا والنهارا أنا أبي لهي محاضر ملاينا يساكوا عددك وذبين تكو يبسنا هيا وعقل قولي حكمة دودو أي نقطة وحي هالكا كليا مريان محاضر ملاينا يساكوا واحد دعي دووين كدعي ومدو كيني محاضر ملاينا يساكوا دخاتير تأه ودكتور رضعه وفلسدة وحبا أن أقونين ووحينا أقون ومدى كل ضبيبة يوسنك وقلنا هاي محاضر ملاينا يساكوا كل قول وحا أي تشمعين أيان وأرورين أيان وحرام dadka wuxuu day baadil ku cunahayo mana baxsanayaan ogaad ilaahay agtiis wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa jiray maalintii khaybar nin adoon aha oo saxaabi aha oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam u khidmaynayay meel baa inta la degay markii laga soo dagaalkii khaybar uu dhacay وغزوة خيبر وحوي حول بدن لقى قاضي قالدي أيا ننكاسي وحو قاتي مدعم أيا لورنشري وحو قاتي قوع كم مدعة حوله غنيمة دعها قوع كم مدعة أيوقات وولي عن لقيبين انت عن لقيبين بولفعنا ذوقات أساقو تشوغا أيا وحويان وحاكود عيليب يجنتال عدو سوري ذي باكون داعي مرو كون داعي نوادت وسحابي نبي جو خدمينا يا صلى الله عليه وسلم قال أياد الشيء انت أسا اسكو قدرمي مرقا سي صحابة وحي لأن هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة نكاني وانين أهل الجنة أو جنة ليوية waxay ugu boogaadinayaan oo ku faraxsan yihiin inuu cadawga gacantiisa uu ku dhintay saxaabina uu ahaa nabigana khaadim uu ahaa janna ayuu saas ku helay yiraahdo shahaada ayuu helay ninkaas nabigu markuu maqlay yiri kalla maya والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه النار إلهي بان كدارت له مرضي او قاضي مالنتي خيبر انتان لقيبين كهر او قاضي قعي ايا قبري دحديسا ku gubanayo ku holcahayo ayu ku naarayo ku cadaabaya ninka sidaas aha qabriga ayaa lagu cadaabaya asagoo fadaaishaas oo dhan leh ayaa qabriga lagu cadaabaya waa go uu qaaday baa lagu cadaabaya dadkii markii ay maqleen ayaa qof walba intuu naxay oo argagaxay ayuu wuxuu hayay soo qaado iska keen saxaabada rag baa waxay keeneen shiraaguna waxa weeyaan kabta suunkeeda weey kabta suunkeeda meesha hore ah laba suun ama hal suun ayaa saxaabo qaaday ay iska keeneen oo yiraahdeen waxaan wax lagu baxsanayo ma ahaba markay nabiga u keeneen baa nabigu wuxuu yiri shiraakun aw shiraakaani min naar waa suun naara ama waa laba suun oo naarahay ogaada aad qaadeen hadayna iska keen lahayn naar ba ku guban lahayd waa dhowr dirham jooga ayaa saxaabi dhan waxa weeyaan cuqubadii qabriga u qabsatay maxaad u malaynaysaa leyla wa nahaaran رجل لالوش كجورانا هي أدها خيانة هي واحد أمد اللي يقصوا ديبي أول يرسيا ليلا والنهارا أنا أبي لهي محاضر ملاينا يساكوا عددك وذبين تكو يبسنا هيا وعقل قولي حكمة دودو أي نقطة وحي هالكا كليا مريان محاضر ملاينا يساكوا واحد دعي دووين كدعي ومدو كيني maxaad u malaynaysaa kuwa dhaqaatiirta ah
oo digtoorada ah oo faalsada ah waxba aan aqoonin oo waxaynan aqoon ummadda ku dabiibayo sanka u gelinayo maxaad u malaynaysaa kulligood waxa ay jamcinayaan oo aruurinayaan waa xaraam dadka waxooday baadil ku cunayaan mana baxsanayaan ogaada ilaahay agtiisa cuquubadaasi adduunka waa haysataa qabrigana waa ku sugaysaa qiyaamana waa ku sugaysaa ama qiyaamaha wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa kacab ibnu cujra ayaa nebigu la hadlayay innahu laa yarbuu laxmu nabata min suxtin ilaa kaanat innaaru awlaa bih ma jiro qof hilibkiisu uu ku barbaaray xaaraan qof xaaraan ku koray ma jiro ilaa waxa weeyaan naarta ilaahay uu ku habboon yahay oo qiyaamaha naarta ilaahay baa looga goynaya ama xaaraan ku naaxoo ku cayil ama ilma ku korso ama dabaqiyo daara ka dhiso ama ummadda sun u keen ama mukhadaraad iyo daroogo ka iibi kulli waxaa sugaya cuquubadii qabriga tii aakhira sugaysa kulli waxaa oo ku sugaysa qofka xaaraamta cuna waxaa lagu cuquubeeyaa adduunyada ducadiisa lama aqbalo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina allaha طayibun laa yaqbalu ilaa طayiba ilaahay waa طayib waa wanaagsan yahay wax aan طayib ahayna ilaahay ma aqbalahayo wax aan wanaagsanayn oo aan طayib ahayna ilaahay aqbali maayo markaasaa nebigu wuxuu ka sheekeeyaa nin musaafir ah oo booraysan oo basaasan oo ilaahay baryaayo gacmaha kor u taagaya oo odhanaya rabbi yaa rabbi yaa rabb ducadiisiina aan la aqbalahayn waa musaafirka ducadiisa waa mustajaaba waa la aqbalaa qofku markuu basaasan yahay oo dhibaatadu ay ka muuqato asbaabaha ducada looga aqbalay ka mid tahay markuu gacmaha kor u taago ilaahay uu baryahayana asbaabaha lagu aqbalay ka mid tahay gacmaha in kor loo taago laakiin lama aqbalin nebigu wuxuu yidhi wamatcamuhu xaraam wuxuu cunahayaa waa xaaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam hadduu xaaraan cunay oo xaaraan cabbay oo xaaraan duubsaday fa annaa yustajaabu lah see ducada looga aqbalaya asagaaba xijaab ku gooya ducadiisa mar kasta waxaa laga yaabaa ilaahay baad tuugaysaa ducadaadina arki maysi ma isweydiisay dib ma u raacday waxaa cuntid meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin ma isweydiisay wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama rag u sheega ogaada rag iska dabaalanaya xaaraan oo maalka ilaahay dhex dabaalanaya xaq la'aan ku dhex dabaalanaya maalkaas caamka ah ayay dhex dabaalanayaan maalkaasi waa caam ama ha ahaada mid ummadda dhan ka dhexeeya ama mid shaksi gooni u leeyahay yatakhawaduuna fii maali illaah maalka ilaahay bay ku tasarufahayaan bigayri xaqin xaq la'aan bay ugu tasarufayaan falahum annaaru yowma alqiyaama baa nebigu yidhi sal ly slam naar bay leeyihiin qiyaamaha raggaasi naar ayay leeyihiin dadkaasi naar ayay qiyaamaha leeyihiin bal waxaad fiirisaa saxaabadii nebiga iyo dadkii salafu saalix ahaa taabiciintii iyo taabicu taabiciintii dhaqankoodu sida tan miyuu ahaa ma ahayn cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay kunnaa nadacu 9 acshaari alxalaal makhaafata alwuquuci fi lxaraam xalaasha laftigeedaa 10 marka loo dhigo 9 ka mid ahaan ka tegaynay buui waa xalaal 10 baan u qaybinaynaa 9 ka mid ahaan ka tegaynay maxaan oga tegaynay inaan xaaraan ku dhacnaa ka baqayna intay xaaraani soo dhowaan lahayd xalaashaan oo dhan ka taga ayay noo ahaan jirta cabdullaahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi lian arudda dirhaman min shubhatin hal dirham oo shubha ah oo xalaalnimadkiisa shaki iga galay in aan diido oo iska tuuro axabbu ilaya min an atasaddaqa b100,000 waxaan kaga kalsoon oo ka jeclahay inaan sadaqaysto 100,000 oo dirham inaan sadaqaysto oo xalaal ah 100,000 oo dirham oo xalaala inaan sadaqaysto
يا هل درهم وأن كشكي إن أن توره وحان كل صوناي هل كالدرهم وأن كشكي إن أن توره أيان شعله سفيان بن عيينة وحديه تري من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول قفك حرام بحين يوكب بحين يطاعة إلهي مساجد بو كل سيا دكسيو كل سيا حجكي بو كآليا صدقاء أيو كدقنا هيا ومساكين تصيصتا أيو صدقاء سنيا وانا حرام وحول لمدي هاي قف كاسي قف مرات دقا هيا أورنا يا كادي بانكو ظاهرين يا مردان كادي ولا يطهر الثوب إلا بالماء مرضنا لقمة ظاهرية وحن بياهين والذنب لا يكفره إلا الحلال ذنبي أنا ما ترترها إلا حلال مويان قف ما أنتون المرض ظاهرين يا أو كادي كو ظاهرين يا مية سعون إيسا وحقوا بحنا يا حرام تاهو اللي يطاع إلهي بانكو بحنا يا تاسع يا لمتا وين الأجانا ولا ليال إمسان عني كرنا حرام هين كرنا marka adigu ka dhimatid oo ka tagtid ilmahaaga agtooda xaraam kama aha say rabaan bay ugu tasarrufayaan adigana ciqaabtoodii iyo cadaabkooda waa ku haystaa ayaguna si allaaliya sida ay rabaan bay ugu tasarrufayaan inta maalkaasi sii socdana oo baaqi sii yahayna waxa weeyaan dambigiisii qabriga ayuu kugu socdaa qiyaamana waa ku sugahayaan waxa weeyaan faqri kacar xarana u qaado إلهي أكتس وحا هذا اللي قمر ذكره إلا طاعة إلهي موياني فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي كعب صدى أيها النبي يقولي وقابك وحوض البيسان قرحية طريقة وحكور هذه الإنسان طريق قرحونا هذا وحا أكشك يسيد محلال بما سوى حرام أهل العلم قويديه هكذا بخيل اسكهو بصو مات أيها الدنيا شوكتها مات أيانا بنانك بركتها وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم وقال قفك إذن كم إذا يينن كحنبار رزقك أو ضاه صدي إنه طريق حارانا كرادي فإن ما عند الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته إلهي أكتي سوحا أهاري طاعتي سايا لقرادية طاعة إلهي بالقرادية لقو مرة هذه طريق حرامة اسكده وحلنا يقفك السيجار كقضاء والسيجار كقنا عصنا هيا إلهي هكذا يقوى الصن وأنا حرام ضرر إيا مصيبة أيو لي هي خبائث أيو كمدي هي إلهي يقول توبتك إلهي نوحن كوي دينينا هداد ما أنت قوان كاقالتد وإلهي أقول توبتك أنتد إلهي مالك لأنه كادقه وإلهي غني كادقه نينك شاتك قلا oo fasaadiyay ummadaas oo dhan baabi'iyay oo noloshoodii caafimaadkoodii dhaqaalahoodii ku qabaaray waxaan leenahay inta kaaga ekaato ilaahay uga toobadkeen waxaan kuugu ducaynaynaa faraj fiican oo xalaal tayiba ah oo aad sadaqaysan kartid oo aad xajka ilaahay ka aadi kartid oo masaakiinta aad siin kartid oo masaajid ka dhisan kartid ilaahay subxaanahu wa tacaala badal khayr qaba oo degdega allah ku siiyo ee maanta ka toobadkeen ninka laaluushka qaadanaya midka hay'adaha ka dhacay masaakiintii lagu soo dhiibay u celi badal khayr qabana ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala